بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن داوضيال كسو دوادا برنامجكي هالو دكتور عافماتك برنامجك waxay noogu martiya toddobaadkan Dr. Abshir Abdullah Mansour oo kamid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed ee ka howlgala magaalada London. Dr. Abshir aad iyo aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtigaaga. Barnaamijka qaybtii koowaad waxaynu ku soo qaadanay cudurka sonkorta ama diabetika. qaybtan labaad ama barnaamijka labaad ee Hello Doctor waxaynu ku eegeynaa cudurka dhiigkarka. soo gudbinta barnaamijkan waxaa gacan ka geysatay shirkadda xawaaladda ee Safari Remit oo ah shirkad xawaaladeed oo fadhigeedu yahay dalka UK. si aad u hesho faahfaahin dheeraada una adeegsato adeegga Safari Remit booqo website-ka shirkadda www.safariremit.com. marka ugu horeysa cudurkan muxuu yahay doctor? aad iyo aad aan u dhowahay waa mahadsantahay Mawliid. dhiigkarka sida aad la socotaan ama aad la socotid waxaa jirto waxa la cabiraa blood pressure-ka ama dhiigga awoodda ama xoogga uu ku socdo ayaa la cabiraa. waxaan lagu cabiraa millimeter mercury wax la dhaho gacanta lagu xiraa. waxaa la fiiriyaa inta bombo oo awoodda ah ee wadnaha uu soo garaacsanayo ayaa la cabiraa. millimeter mercury-gaasa lagu cabiraa. marka waa inuu limit lahaada, xad lahaada. wax alla wixii xadkaas ka baxsan ayaa waxaan oo zaa'id ah oo badan ayaa waxaan dhihi karnaa waxa qofkan uu qabaa high blood pressure uu qabaa. for example kan ugu wanaagsan oo idealka ah waa 120-80 millimeter mercury. wax alla marka intaasuu qofka ilaa iyo xoogaa hoosa wuu noqon karaa waa normal. laakiin wax alla wixii kasii bilowda 140 iyo 90 kasii sareeyo qofka markaas wuxuu aaday high blood pressure ayuu aaday ama dhiigkar ayaa ku bilowday marka oo limitkaas la maraayo. marka asaga ayaa macnaha kala badan. dadna waxa waaye aad u sii waxa jira emergency kuwa ah oo aad u sii 200 sii dhaafaya 200 wax la jira dhaafaya kuwaas oo emergency ay noqonayaan. cala kulli xaal marka limitki ama xadkii loogu talagalay blood pressure oo millimeter mercury lagu cabirayay oo ka bato 40 90 uu ka bato qofkaas waxaan dhihi karnaa dhiigkar ayaad qabtaa ayaa dhihi karnaa anagoo ku celcelinayno oo fiirinayno waqtiga aad dhiigga ka qaadaysa ka cabiraysid stress inuusan jirin. waa inuu qofka fadhiyaa, waa inuusan qofka relax uu yahay. qof isla markii markaas kuu soo galay haddaa ka cabirtid blood pressure waa high waa inaad xoogaa dejisaa oo nasisaa kadib aa cabirtaa. hadduu markaas sareeyo hal marna lama cabiro, maalintii 2 jeer ama 3 jeer la cabiraa. marka hadduu intaas limitkaas uu ka badan yahay ama xadkaas uu ka badan yahay qofka marka waxaan ku magacaabnaa wuxuu qabaa high blood pressure ama dhiigkar ayaad qabtaa ayaan ku magacaabaynaa. waa gartay doctor aad baad u mahadsan tahay. maxay yihiin marka calaamadaha lagu garto dhiigkarka? Mawliid kan waxaa lagu cudurkan waxaa la dhahaa silent killer. kii aamusnaayo dadka dilaya la the majority dad badankiisa uu aamusan yahay qofka waxba ma dareemo. mararka qaarkood asagoo isbitaalka iska tagay ama sababo kale u tagay ama dhiig laga qaadayo naarsigii aska cabireen ayaa helayaan. marka saas darteeda waxaa la dhahaa silent killer. kii aamusnaayo dadka dilaya lagu magacaabaa. waa qayb dhan oo aad u badan. qaybta labaad oo calaamadaha leh waxaa ugu badan madax xanuun. qofka headache madax xanuun kama baxaayo, madaxa xanuunayo, culeys miisaan ah ayaan dareema ayuu ku hayaa. kaas calaamad waa calaamad ka mid ah oo aad ku garan kartid inaad dhiigga ka cabirtid waayo sababta qofkan madaxa u xanuunayo maxay tahay. tan labaadna waxaa arkaysaa qofkii xabadka ama culeys miisaan ah xabadka ayuu ka dareemaa sida inay wax saaran yihiin. midda kale xoogaa wuxuu bilaabayaa neeftuur ayaa haraanhar ayuu bilaabayaa. asagana haddii aad waxaad ku dareentid inaad asagana cabirtid waayo. waxyaaba kaloo keeni kara waxaa ka mid ah in aad ku aragtid sangoror ama dhiig uu ka yimaado sankiisa. sangororka waxyaaba kala keena oo keeni kara laakiin wuu ka mid yahay calaamada ka mid ah uu ka mid yahay oo kuu keeni kara. ragga qaar ka mid ah waxay isku dareemaan awood darre xagga ragnimada ah. kaas ay ku ogaadaan markii dhiigga la cabirkan wuxuu marayaa aqli macnaha wuu badan yahay aad u badan yahay ayuu keenayaa. marka calaamadahaas marka laisku soo dardaro ayaa waxaad cabiraysaa dhiiggii markaasaad go'aan gaaraysaa qofkan haddana maalmaa la cabiraa si loo ogaado in marka welwel uusan qofka haynin
weli uu iska sarreeyo muddadaas uu hayga yahay marka go'aan la gaaraya markaas waa marka loo bilaabayo daawo loo bilaabayo waa gartay marka maxaa keena cudurkan inuu dadka ku dhaco maxaa u sababa okay waxaa loo su'aal aad u wanaagsan waaye waxaa loo qaybayaa laba qaybood qayb waxaa la dhahaa primary ama kuwa qaybtii hore iyo secondary iyo qaybta labaad primary waxyaabaha oo koowaad oo essentialka ah oo keeni kara ayaa waxaa ka mid ah stress noloshan stresska badan welwelka badan hadda waa aragtay adduunyada si isu bedelayso taas waxay keentay in maxaan ku dhahaa blood pressure uu imaado uu bato dad badan uu ku dhaco ayay keentay labo isticmaalka cusbada milixda waxaana loogu talagalay 2 gram meelahaas inaan isticmaalno waxaan isticmaalnaa 12 gram ayaan isticmaalnaa meel walbay ku jirtaa cuntadii ayaa meel walba noogu jirto cusbadana marka waxay kor u qaadaa blood pressureka ayay high ka dhigtaa welwelka tirada badan qofkii oo genetic haddii waalidkiisa ay qabeen laftirkiisa waa very important asagana in la ilaaliyo way keeni kartaa kuwaas waa macnaha essential ay dhahaan ama primary ay dhahaan ama maxaan ku dhahaa waa kii koowaad waay kan labaad high blood pressure oo secondary a jiro oo labaada kuwan secondary waa kuwa la yaqaan kasoo qaad qofka wuxuu qaba thyroid problem thyroid dheecaan fara badan soo daynaya qofkii marka blood pressure u imaanaya because thyroidkii ayaa dheecaankii soo daynaya badanaya kelida ayaa problem ka haya ayaa saasoo kale uga keenaysaa kansar waxaa jira ama tumor waxaa jira ku dhaco keliyaha korkooda dheecaan ku yaallo oo maxaan ku dhaha qanjaro ku yaallo oo dheecaan soo saara hadda iyagana hadday jiraan wuu keenaya Cushing syndrome cudur kale waaye oo asagana keenayo kidney problem macnaha secondary waa wax la garanayo oo kale ama daawooyinka qaarkood hadda sida cortison oo kale kuwa oo depressionka loo isticmaalo oo kale way keenaan blood pressureka kor u qaadaan marka mararka qaarkood kan labaad factorka keenay ayaad ka bixinaysaa ama ka joojinaysaa ama ilaalinaysa kuwaas waxaa la dhahaa secondary ama dhiigkarkii labaad aa lagu magacaabaya kan ugu horeeya ayaa boqolkiiba 80 ah kan labaad boqolkiiba 20 waaye oo waxyaabaha la garanaya keenayo oo sida keliyaha ama cortison qosta isticmaalaya ama thyroid inuu qofka ka jiran yahay waxyaabahaasi waa secondary oo la xallin karo marka labada reason ku imaanay kaas waaye milixda aad loo isticmaalo stresskan adduunka oo isbedelay raashinkeena oo milix fara badan aan ku darno waxyaabahaas ayaa waxay keeneen in hypertension ama dhiigkar oo essential uu dhaco boqolkiiba 80 kaasa ugu badan waa garta aad baad u maastar Dr. Abshir marka yaa halis ugu jira cudurkan inuu ku dhaco waa su'aal aad u wanaagsan waxaa halis ugu jira dadka sidii aan sheegaynay sokorta oo kale aad ugu dhow yahay dadka miisaankoodu badan yahay ama culus yahay obese dadka ah ayuu aad ugu badan yahay wuu imaan karaa dadka fadhigoodu badan yahay aan dhaqdhaqaaqooda badnayn ama exercisekooda ama jimicsigoodu aad u yar yahay ayuu aad ugu badan yahay iyo fadhiga badan dadka wuxuu aad u isticmaalaa milixda oo cusbada mar walba si aad xad dhaaf ah ugu dara ayuu ku dhici karaa wuxuu ku dhici karaa dadka smoking sigaarka balwada leh jaadka sigaarka alcoholka waxyaabahaas qaarkood dadka isticmaala ayuu ku dhici karaa halis ay u yihiin dadka daawooyinka qaar ka mid ah isticmaala ayagana halis ayay u yihiin haweenka uurka leh mararka qaarkood waxaa ku dhaca ayagana sida dhiigkar oo la yaqaano eclampsia lagu magacaabo laakiin wuu ka baabaa markay dhasho waxaana loo malaynaa mindhicirta isku xirta cunuga inaysan dhiig fiican uusan cunuga helayn uu dhicaan fara badan kusoo daynayo hooyada si uu u helo kaasna hooyada waxaa ku dhacaya high blood pressure oo zaa'id oo khatar ah oo isbitaal lala galaa ku dhacayo kaasna waa gooni marka waxyaabahaas markaa isku dardartid ayaa waxaa dhigi karta dadkaas ayaa genetically waalidka hadday qabeen oo aad ka soo jeedid family dhiikar qabay wuu keeni karaa midda kale oo ayadana very important ah waxaa jira family oo dhexdooda isgurguursadaan oo macnaha aan guursan dhexdooda isku noqdaan kuwaasa badanaa waxaa ku badanba sokorta iyo dhiikarka iyo hemophiliada dhiigga maxaan ku dhahaa oo ku dhaca dadka oo family ahaan qaraab ahaan isu dhex galo oo isguursado ayagana wuu keeni karaya waa tahay Dr. Abshir aad baad u mahadsan tahay waa yahay cudurkii siduu ku dhaco iyo dadka halista ugu jira iyo qofka uu ku dhaco sida calaamadihiisa waa noo sheegtay daawo ma leeyahay marka cudurkan dhiigkarku
haa dawo wuu leeyahay marka asagana daawooyinkiisa waxaa aad muhiim u ah haddiiba go'aan la gaaro inuu qofkan dhiigkar qabo waxaa jira kaniiniyaal oo la siiyo kaniiniyaasha way kala xoog badan yihiin marka waddan walbana waxay leeyihiin guideline ama hab ay u raacaan kaniiniyadii kowga la siin lahaa waddankan oo kale sida amilooda binka oo kale lahay ayaa kowga lagu bilaabaa oo khafiifka ah dhiiggii waa laga dejiyaa qofka blood pressureka wuu la dejiyaa hadduu degi waayo waxaa loo gudbaa second generation group kale marmar qaarkood waa laisku daraa laba group oo laisku dhex daraayo qof waxaa arkaysa 3 nooc oo kala qaadanaya hadba daawooyinkaas ayaa aad loo isticmaalaa way badan yihiin daawooyinka wayna kala awood badan yihiin marna halaa la isticmaali karaa marna labaa la isticmaali karaa marna waa la isku dari karaa ayaa aad loo isticmaalaa midda kalena qofka waa inuu exercisekii dietkii milixda tirada badan cusbada tirada badan in laga ilaaliyo raashinkiisa macnaha uu isticmaalaya in aad loo ilaaliyo ayaa aad very important ah walwalka tirada badan stresska in laga ilaaliyo bakaw hor uu qaadayaa dhibaato u keenaya sidee looga hortegi karaa marka cudurka waa su-aal aad iyadana muhiim u ah oo waxaa looga hortagayaa horta fadhiga tirada badan ama haddii cayil uu qofka jiro in cayilka iska rido miisaanka dhimo ayaa number 1 ah haddii activitydiisa ay yar tahay ama dhaqdhaqaaqiisa ay yar tahay inuu dhaqdhaqaaqa badiyo ama maxaan ku dhahay sportis galo ama jim ha aado ama socodkiisa badiyo haddii kuwaas waa very important cuntada aa cunaysid milixda aa ku daraysid ama cusbada aa ku daraysid inaa ilaalisid oo aa iska ilaalisid milix tira badan dhibaato maadaama ay keenayso midda kale stresska iyo walwalka badan haddii la yareyn karo in aad loo yareeyo maadaama ay ka mid yihiin waxyaabaha keeni karo oo maxaan ku dhahaa dhibka uu keeni karo inuu dhiig kar kugu dhaco ay keeni karaan walwalka tirada badan shaqooyinka waxyaabaha qaarkood in ayagana aad loo yareeyo ayaa aad muhiim u ah waxyaabahaasaa looga hortegi kara cabitaanka biyaha waa inay fiicnaadaan oo inta loogu talagalay 2 litir biyo caaba maalintii caba ayaa la yiri laakiin ma cabno asagana cabitaankaas aad u wanaagsan yahay midda kale dufanka oo cholesterolka ah saliidda waxyaabaha qaarkood oo xididada xiraaya arteriosclerosis lagu magacaabo cholesterolka in la ilaaliyo oo hoos loo dhigo sababtoo xididada hadduu xiro pressureka xoog leh ayuu u baahanaa qofkii marka saas wuxuu ku imaanaya dhiigkar saas wuxuu ku imaan karaya marka habkaas ayuu macnaha qofka uga hortegi karaa exercisekaas dietkaas iishag miisaan kor rido dhaqdhaqaaqiyo badiyo cuntadii iska ilaaliyo milixdii la ilaaliyo waa gartay dr abshir ugu dambayntii marka cudurka haddii aan la daaweyn maxay tahay waxa ka imaan kara qofka maxaa ka soo gaari kara aad iyo aad su-aal u muhiima wa cudurkan waa dilaa silent killera lagu magacaabaa silent killer waxaa laga wadaa cudurkii aamusnaayo dadka dilaya wuxuu keenayaa maskaxda dhiig ku furmi kara stroke shalal ay dhahaan ama stroke keeni karaa wuxuu keeni karaa heart attack wadnaha oo qabsama wadna qabnin ayuu keeni karaa keliyaha ayaa fashilmi kara oo keliya baaba in keli lagu raadiya ay noqon kartaa xagga ragga xaggooda marka loo kaco awood darri xagga rag ku imaadana way u keeni kartaa dhibaato aad u fara badan waay marka waa cudur aad halis u ah haddii aan la daaweyn dhimasho uu keeni karo ilaa iyo dhimasho laga gaaro ay imaan karto marka waa important in laga hortaga ama la daaweeya ama maxaan ku dhahaa la ogaado dadka familiarity u lehna waa inay si gaara horta isu ilaaliyaan haddii waalidkaha iyo familkaaga aad ka maqashid inay dhiigkar qabeen aad iyo aad baad u mahadsan tahay dr abshir cabdulla mansuur oo noogu marti ahaa barnaamijka hallow doctor qaybo kale oo caafimaadka la xiriira oo su'aalo dhakhtarka aad toos usoo weydiin doontaanna insha allahu tacaala waan qabanaynaa bisha oktoobar dr abshir aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa waqtigaaga jazaakum allah khayran ajar iyo xasanad allaha kaa siiyo dadka u faa'iidaysay iyo sida su'aalahaas aa uga jawaabtay aad baad u mahadsan tahay adiga mudan mawlid aad iyo aad ayaad ii sharaftay waad mahadsan tahay aad baad u mahadsan tahay titore ahlan wasahlan